صاحب يال وحن إذا تسي دونا هبابك الدورشة دي سيدو كله مرحلة wadanka guud ahaan boqolkiiba markaasi 79.5 ayaa markaasi laga codeeyay oo yani codadkooda la furay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan hoos buu dhacay markasta oo boqolkiiba hadii aan fiirino boqolkiiba 50.5 ayuu maraya xagga yani hogaamiyaha mucaaradka Kamal Kılıçdaroğlu uu maraya boqolkiiba 43.7 oo waxaad moodaa in Kamal Kılıçdaroğlu uu markasta uu kor u yara kacayo 7 حاجة 5 نو مرة هدي بقول كيف كنتون صاحبيال هدي بقول كيف كنتون هوس لو قدو يعني وحين نقول إن دور الشكل سدي لا تنقبش ولا بل تضبطوا كدي دي بلوجو لابتو يعني وربعينات بدن أيا يعني السيف وين فلانقينا يا مقالوين كهذا قبل كانوا كلام يعني وحكوا الريا رجل ضي برضو كان يا كوريا يعني سجود أنت قومي بسنة يعني وضع أنت قومي بس صاحبيال وضعك جودهن هدي بقول كيبه بقول لقى مركز يعني عد كذا لفرو وهل كان ينام بقول كيبه كنت نيوت هاي يعني كمال كيشدارنا وبقول كيبه أفرتني يسدح يا هاي عن راليقة هذا عن تسو بقول كيبه أفرتني يسدح يا يعني بقول كيبه كنت يكون رجب ضي أردوغان هايستو يعني مركز أردوغان بقول سنة وضم كنا هدي بقول كيبه بقول لفرو يعني عدد ما دام هذا بقول كيبه سديت واحد كله وشان أي كده منتهي لما رأينا وحكي كده جنتهاي أردوغان بقوله الريا السيد كل صاحب هالك مهم كلا يدنا حيتهاي in halkan oo ah markaasi boqolkiiba 50.5 kan oo hadii Erdogan hoos uga dhaco yani rajadiisu aad bay markaasi u liidanaysaa oo waxay noqonaysaa in mar kale dib loo daro 20 bisha May oo 2 toddobaad kadib si guud dalka Turkiga Istanbul 48.3 Ankara yani aan ilaahda isla Istanbul madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan 46.8 waana magaalada Istanbul oo ah magaalooyinka ugu muhiimsan balse aad bay isugu dhow yihiin waxba ma kala dheera daawadayaal doorashadani waa doorasho xasaasiya waxa laga cabsi qabaa hadii markaasi sidan ay ku sii socoto Erdogan kan uu hoos uga dhaco in 28ka bisha May oo 2 toddobaad kadib markaasi loo dareero balse daawadayaal waxa xusud mudan in 28ka hadii yani ay noqoto in dib yani loo codeeyo in wadanka yani 28ka bisha May 40,000 dad kor u dhaafay oo dhalinyaro ah inay da'da 18 gaarayaan oo ina xilliga codeynta chance u helayaan kuwaas ayaa iyaguna codeynaya Erdogan ayayna la kowsadeen waxaana macquul ah ayaa leeyahay Erdogan inay u codeeyaan balse doorashadani waa doorasho xasaasiya halka YouTube hogoleysiyo sidoo kale bartayda TikTok ta Cabdul Nadaara fadlan muuqaaladana si share gareeya doorashaduna xasaasi bay maraysaa Erdogan wali shantii ayuu taagan yahay inuu hoos uga dhacana waa macquul kor inuu ka kacana waa macquul